marka waxa waay maanta dhibaatada maalinta jirtana aday kula taala bir dheefta markay timaadana nin kasta waxaan ku leeyahay garabka waa adooba ka horeeya goboladii inta kale oo nabadda ahayd xataa haddii maaragtay la yiraahdo qosolka bihiilo galaa waxa waay maaragtay xataa haddii loo hambalyeyn lahaa ciidamadii wax dhanay ahaan lahayd midda labaad waxaan ka tacsiyeynaynaa maaragtay dhalinyaradii shahiiday iyo intii maaragtay maxay ahayd labadii wiil iyo intii la jirtay kulay waxa waay maaragtay dab hadduu kaco waxa waay hagaanku gubaa kaligood ma dhimanin waa lala dhintay intii la dhimatana allah u naxariisto ayagana maaragtay allah u naxariisto waalidiintii ay ka baxeen sabri iimaan allah ka siiyo midda kale alxamdulillah shukr bil caalamiin waxa waay maaragtay waa shahiideen waana maaragtay mudan yihiin waxay badbaadiyeen maaragtay odayaashii oo madaxweyne leh oo waxaan ku leeyahay sanatarro leh oo xildhibaano leh iyo maaragtay in kaloo badan oo maaragtay aan la soo koobi karin ilaahay waxaan ka baryaynaa jannadii maaragtay meeshii maaragtay firdowsi allah ku casuumo sabri iimaan allah ka siiyo maaragtay intii ay ka tageen intii hore u dhimatay iyo inta gadaal ka dhiman doontaba ileen waxa waay maaragtay mar haddii dagaal lagu jiro wax kasta filo waaye nolol kaliya lama fisho geerina waa la fishaa waxa maaragtay ilaahay uga baryaynaa maaragtay dhibaatadan hays horta allah naga dulqaado cadowga nagu soo duulo allah naga maaragtay suuliyo waxa waay maaragtay dhibku waa noo badan yahay qaasatan goboladaas dhibku waa u badan yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu fartii suulka nooga qaado annagana libaaxidii naga dhigo ayagana loodi ka dhigo oo ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu maaragtay dadkeena waa dhinteen dhibaatan 17 sano ku jirnay dhibka inuu ilaahay naga dulqaado waxaa kaloo maaragtay mahad u celinaynaa dhammaan maaragtay kasoo qaybgalayaashaan maaragtay caawa meesha isugu yimid inta soo abaabushay aaday u mahadsan yihiin midda kale waxa waaye maaragtay waxaan hambalyo iyo maaragtay bogaadin u direynaa maaragtay marka ugu horeysa madaxweynaheena professor xasan sheekh maxamuud oo jiida hore taagan ciidamadeennii oo maaragtay aan kala maqnayn xildhibaanadeena waa arkaysan waxa galmudug jooga waxa hirshabeelle jooga meel kasta waxaan ku leeyahay maaragtay hiiraan waa arkoo haysiin maaragtay dhibka intuu u badan yahay waxa waaye yar iyo weyn lama kala herin waxa ayaan darro amaanta in maaragtay la isku fiirsado dhibaatada goboladii inta kale oo nabadda ahayd xataa haddii maaragtay la yiraahdo qosolka bihiilo galaa waxa waaye maaragtay xataa haddii loo hambalyeyn lahaa ciidamadii wax dhanay ahaan lahayd marka waxa waaye maanta dhibaatada maalinta jirtana aday kula taala bir dheefta markay timaadana nin kasta waxaan ku leeyahay garabka waa adooba ka horeeyaba adiga dhibkii u dhabar adeegtay bari markii maaragtay nimco markay timaado waa lagaaga horeeyaa macquul ma noqonayso senataradii oo dhan waxay fadhiyaan maaragtay xamar ay wada fadhiyaan wasiiradii way fadhiyaan xildhibaanadu waa wada fadhiyaan waxa la wada sugayaa 27-kana haddii la gaaro dekadii airportkii wixii ka soo dhaca maaragtay nin kastaba gacanta u soo taaganaya hortaas aad iyo aad uga xumahay wax maaragtay macquul ahna ma aha in nina oraxda taagnaado nina mukayfka ku jiro yaa uu dheeftana kaaga hormaro af Soomaali ma noqonayso walaalayaal waxa idin leeyahay hala tashto saan nolol ma noqonayso aan tashano ilaahayna garabkeena ha galo aad iyo aadna waa idin maaragtay idinkugu mahad celinayna intii maaragtay soo abaabshayna way mahadsan yihiin waxa waay maaragtay raallina maaragtay aan isu ahaan alla isku kaaya cafiyo dawladdeena kor Allah ka dhigo waa aragteen madaxweynihii wallahi billahi taala maalintu istaagay ilaa hadduu taagan yahay waxa waay far kaligeedna fal ma dhaqdo hadaa garabkiisa la istaagin micna ma sameynayso maaragtay qof kaligiis meel istaagay ma jiro in la isu kaalmeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibaatada goboladan haysata ilaahay naga dulqaado